dumarka ku dhaca caado qalqal ama caado wareer waxay la kulmaan murugo fara badan, walwal fara badan, gabow fara badan, ayaga dhan way diiqaysan yihiin, ma faraxsano. farxadii dhan ayaa ka guurtay maadaama ay sugayeen caadadii ayna waqtigii ay caadadii uga tagaysay ayna gaarin, da-doodana weli uu yaryahay. haddaba caadadaada waxaad ku saxan kartaa alaabahan muddo 3 bilood haddii aadan ka caajisin. farxadaada iyo caadadaada dib ayaad u heli doontaa insha allah. caado wareerka sidiisaba waxaa keena ama caado qalqalka, walwalka ama fikirka faraha badan ayaa keeno. haddii ay fitamiinaadkaaga hoos u dhacsan yahayna wuu keenaa. haddaba alaabtan wuxuu ku siinayaa fitamiinaad fara badan, wuxuu ku siinayaa yacni walwalka fitamiinaadka, yacni hadduu laawkaa yahay ama caadada waxa kaa wadaay waa fitamiin la-aanta. haddaba fitamiin feerada iyo dhammaan ayuu ku siinayaa alaabtan. waxaana isticmaalaysaa 2 waqti. fideogana leeg ii saara, asxaabtiinana u sheer gareeya. waa video waxtar leh. gabdho badan ayaan u baahan, hooyooyin badan ayaa u baahan oo waqtigooda ayagoo gaarin caadadii ka guurta maantana murugo la seexdeen ama murugo la fadhiyaan, aana waxba qabsan karin, caajis fara badanna ka muuqato. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayga qaaligaa kusoo dhawaada janalka Laylo Official. haddii aad igu cusub tihiin subscribe, like, comment, share. haddii aad hore ila joogteenna like, comment, share. dhammaantiin waxaad ilaa dadka cusub iyo dadka hore ila joogayna jazaakumullahu khayran. dhammaantiinna ha iga ilaawina leegta suulka kor u taagan marka hore ii saar, kadib ii daawo commenti qurux badanna igu soo casuumi insha allah ina ii sheer garaysiina isku daya. dad badan ayaa ka faa'iideysto alaabahan, dad badan ayaana ilaahay subxaanahu watacaala daawo ugu daray. haddaba dumarka ka cabanayo caado wareerka ama caado qalqalka, murugada faraha badan ku hayso ama walwal fara badan, diiqo fara badan, aana fadhiga ka kicinin, caajis fara badan haddii ay macnaha ku haysato, caadadaada ay kaa guurtay adigoona da-daada gaarin, dib ayuu kugu soo laabin doonaa insha allah. dib ayuuna kugu soo noqon doonaa caadadaada haddii alaabahan 3 bilood aad isticmaasho. meeshaas waxaa inoogu jiro shanfax ama xabatu rashaad sidaa u taqaanid ayaan soo shiiday, halkaas ayaana kusoo shubay. waxyaabaha dabiibka ku jiro ama faa-iidooyinka ku jiro ayaan idinla wadaagayaa. haddaba fitamiinaadkaaga hadduu hoos u dhacsan yahay, waxaa la kulmaysaa caado wareer, waxaa la kulmaysaa walwal. wallaahi haddii aad toddobaadka hore aad shanfaxdaas isticmaashid, isla marka murugada ama walwalka ku haayay adigoona wax aad ka fikiraysa aanan la aqoonin ayaa isla markii kaa guuraayo. waxaa naqanaysaa caajiskii faraha badnaa ku saarnaayna faxfax waa ordaysaa, haan ku dhahay xoog keliya hooshaada qabsanaysaa. malabkana waa saafi, malab saafiyana soo gado. shanfaxdaana meel walbaa laga helaa ama xabad rashaadkan. iimaanso, ilaahayna tala saaro, qur-aanna akhriso, 3 biloodna isticmaal, biyo fara badanna cab. isbedel ayaa jirkaaga ka dareemaysaa. haddii gacmahaagii wejigaaga gabow ka muuqdaan, murugo fara badan kaa muuqdo, haddaba waa kuwaana malabkii qaandadan weyn ayaan ku shubay. fideoga dhammayso ilaa dhammaad, leegna saar, asxaabtaadan u sheergaray. malabkii ayaan ku shubay, haddana shanfaxdii ayaan soo qaadanayaa. labadaas shay ayaad isku garaacaysaa subaxdii hore, habeenkiina sidaasoo kale intaadan afka wax saarin ayaad subaxdii isticmaalaysaa. habeenkii markaad sariirta sii tegaysa, raashinkii adduunyadii oo dhan kaa dhammaadeen oo muddo 2 saacaad ka joogtay cabitaankii iyo wixii aad cuncuntay, ayaad dalaq siinaysaa, biyaha kululuqanaysaa, sariirtaadaad tagaysaa dig. wallaahi hurdo fara badanna waa helaysaa. xanuuno fara badan ee xagga raximka kaa haystay, dhabarka kaa haystay, madax xanuunkii ku hayn jiray, walwalka adiga yacni dad waxaa jira wax ay ka walwalayaan ama ay ka fikirayaan ma yaqaaniin, ayaga dhan way naxnaxsan yihiin, wadnaha xanuuno, fadhiga kama kacayaan, caajis fara badan. waxyaabaas waxaa keeno hormoonaadkaaga hadduu qalqalsan yahay oo caado wareer uu ku haayo. caado wareerkana aad ayuu dhibaatada u badiyaa.
wuxuu badiyaa inuu wejiga kaa haleeyo inuu adiga dhan maaragta uu stress kugu furo ummadda aadan la sheekaysan karin aad walwalaysid mar walbo haddaba intaas haddii aad ka cabanaysid daawadaada waa tanaa ilaahay subxaanahu watacaala tala saaro kadibna 2 waqti kaliya isticmaal 2 waqti markaad isticmaashid isbuuca ugu horeeyo adigaa dareemi doontid adiga dhan waxaa u malaysaa in lagu siiyey waxyaabaha ma aragtay enerjiga u badan yahay enerjiyaanu ku badan alaabtaan haddii aad isticmaashid tabar fara badan oo ku siinayaa isla marka haddii aad howl qaba jiro hooshaada qabsanaysaa haddaada socon jirin waa soconaysaa biyo badanna inaa cabtiin isku daya biyo badan haddii aadan cabin 10 koob oo biyo maalintii inaa cabto isku day 2 litir 3 litir biyo daa cabi kartid cab waxyaabaha cuntadaada hore aad cuni jirtana wax ka bedel fruitka sida cagaarka waxyaabahaas isku badi ina isnafaqaysin isku daya gabdhahayga qaaliga oo sharafta leh ka walwalsan in caadadii aanba u soo laabanin 3 bil sanado adduunyo ka maqan yahay haddaba haddii dhibaatadaas ay kugu haysato dambe kuguma dhici doono haddaba haddii aad naftaada aadan ka shaqaynaynin yaa kuu shaqaynayo balse haddii aad naftaada aad ka fikirtid aad mar walba maaragta aad cuudubilaysatid qabaysatid wayse qaadatid salaadaada badsatid astaghfaartaada badsatid alaabahana aad quraan ku aqrisatid aad 2 waqti isticmaashid shanfaxda iyo malabka wax daawo loo dhiga lawaa dhabar xanuun hadduu ku haayo wuu kaa guurayaa riximka hoos hadduu ku xanuunayo wuu kaa guurayaa gumaarka hadduu ku xanuunayo wuu kaa guurayaa haddaba ka faa'iidayso walaalayga qaaliga waa idin jecelahay meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtiin janalkayga waa janal dabiib aniga waxba lacag idinkama qaato balse waxyaabaha faa'iidada ma aragti idinkugu jiro ayaan idinkugu soo daalaa aan idin soo dhigaa aan soo jarjaraa aan video dheer idinkaga soo duuba yaa cod soo saara maasha allah idinkan i garab qabta sare ii qaado insha allah walaalayga qaaliga hal qof hadduu ii faa'iido waa bulsho dhan oo ii faa'iiday xataa alaabahan gabdho badan ayaa ku faa'iiday haddii ahaan lahayd xagga dhasha haddii ay ahaan lahayd xagga caadada haddii ay ahaan lahayd xagga jir ahaaneed jirkoodoo dhan ayaga dhan micnahaas isbedelkooda dib ugu soo laabtay waxyaabo badan ayay ka faa'iideen maadaama ay dhibaato qabi jireen calool fadhi ay qabi jireen caado wareer ay qabi jireen qoyaan la-aan ay qabi jireen dhammaan way ku caafimaadeen maasha allah waxyaabaha waxtarka leh ayaan idinla wadaagaa idinkana inaad sare ii qaatin isku daya walaalayga qaaliga dhammaantiin waxaa idinleeyahay gacmo furan kusoo dhawaada qof walbo muraadkiisa macsalaan ilaahay ku casuumo qof walbo oolaad raadinaysa oolaad saalixiina dayibiina gabdhaha xanuunsan oo caadada ka maqana caadada dib allah ugu soo celiyo